باها وفكسي الله متي علاش كقلي مرموت قبك خب هاو هاي ورا هاو كخب جات كوترا جات واقبح أو الله واقبح باي واقب الله بسم الله الله واقب الله باي انتو كفكده يا توقف كده انت وردي حتى انت كوارك فين بقى صارت كخبه لا ما ركته انا سوق او الله وافق هذا باي باك هاو فكسي الله متي علاش كقلي مرموت داوع ميو هاي مرة قبل ربك عنده قخنين الربع داوع مو هذا بسم الله الرحمن الرحيم علاش كسر جدبه مرة هذينا ديجيس مرة هذينا نحصل يلا شوف برصة بالك وفكنا بالك يقدين أو بالك هاي سليدة إيسينيسا برا إيسينيسا بريسا إيسينيسا شندروا إيسيسي بري ما صوصوتا جودر يا صوصوتا جودر يسكري ما كسيحنا مسليد ما لخلخ كينيسا أريما هي الجارسية شيل بانجي سنة يا شيل سوبر لد حرارة هدو دورة ولا هكذا عمد هدو دورة هكذا وردو عاوية ليه جارسية وري جارسية يجري ولا كمل بقصة قارقوا مسكوا صعلا لو بقولي لي جارسية صباح إسلامها هذا أفر عاوي وأنقبه وكسره بدو الله يخدعني قارن يصير رعي قارن يصير رعي يدا قوسيدة يدا قوسيدة وحين ذي شيء أنا وهذا أفر إسلامه في الله وأنقبه وكسره تكلا إني كاي صوتري سريع بس خطر معناه هو محل ولينا إلهي كبقي والإسلام هي العاوية الدنيا دو عاوية اللي هاني قنيو ودي الصومالي نما ضفرت ويسنح أرب بسطها يلا سيدتي صومها ها يلا سيدتي وغريب inaad aragto taliyaha nabad sugidda Soomaaliya oo sida qof shacab ah bakaara uga adeeganaya war macwiistaas meeqa waa war surwaalkan meeqa waa war futushaarigan meeqa waa $40 war iga dhin bal sooyaalka taariikhda iyada isqortee bal dib ugu laabano markii niisa loo dhiibay mahad salaad muxuu ka yiri ninkii isaga ka horeeyay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir laakiin waan ka naxay markii aan maqlay ninkaas loo magacaabay aad baan uga naxay runtii Mr. Shawarma waxaan leeyahay aad baad uga naxday waa ka nixi kartaa laakiin 5 milyan oo xamar degan ama ka soo jeeda ama ku abtirsata ayaa aad uga faraxsan ha anaga farxadda Shawarma naga galownuka war qodobka koowaad ee barnaamijka imaamada maad hala daayacaaw imaamada maad sanad hala sii daay heesa kuugu taala murusada waxay taagan yihiin igaarkeena Xasan Qeera ahaa oo helicopter UN leeda soo ijaartay oo 100 ka soo bixiyay safarkiisi qof ma ogaano maad salaada qarash wuxuu ku bixiyay suuqa bakaaraha inuu tago murusada warkaan maqaaxida iiga daaya dhadeen waa daayay laakiin jawaabta isla aniga idin siinay caaw waa wax aad u adag waay oo aqbali karin ada xataa suuqa bakaaraha dadka xamar degan ku dhashay ku soo barbaaray ama inta deganaa ka soo guuraba oo qurbaan jooga baa horta fahmi karo ciyaal gobol ma fahmi karaan sababtoo ah suuqa bakaaraha wuxuu ahaa iska dhaaf inaad dawlad qayb ka noqotay taliye nabad sugid iyo wasiir iyo xildhibaan ka soo tag hooyada shaah markii iibis ciidanka baa lagu dhex toogan jiray ninka mar askari dollar u sarfay baa lagu diri jiray ilaahay mahadiis maanta mahad salaada suuqa bakaaraha ka dhex adeegan way macna inkastoo Muxudiin Warbac uu aad ula shaqeeyay oo hawshan soo agaasimay labada taliyaba siiba mahad salaado kaartooyinka dajiya yaa inuu suuqa bakaaraha ka dhex adeegto ififaalo ayay u tahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogan wax kale ka dhiimay aniga imaamadaas wiilkaasna ayaan la yaala haysan mina waayahay laakiin murusada ku dhagan heeda meel dheer ayadoo la aaday murusada kale hada hawiye ku dir baa liraa abgaal kale uu shii eebada u sitaa maqli jir muft laakiin waa lagu qaldama taas odayaasha hore aad bay ugu qaldamayeen waxay aad baasha hawiye kale u shii eebada u sitaa laakiin abgaalna waa iska aqbalayna murusada waxay taagiin wiilkeena $100,000 diyaarad ku soo ijaartay boosow maqaayad caawa ka sheeg ma salaadna safarkiisi mid nabad iyo wax lagu tusay dadka ma ahayn safar war ku dilu ahaa booqasho ku dilay idmina qaba idin sheegaya murusado horta aniga waa ceesle iyo murusada isku mid yihiin
markii la qurubta ka jeceshaa macnaa qabiil waa wiil yira oo aan kala jeclaa ma jiraba Soomaaliya hatta kala jeclaan wallahi laakiin waxay noqotaba awiy barka ka ogsooni waa sagay waxay noqotaba war qulubta shacabka 30 sano bakaaro taliye ciidan uusan mari karin mid nabad sugid iska dhaafay iyo nin mucaarado dastuurka yaal furin dhahayo dawladda hadunto hal uu kala tago nin daaradaha soo laabto oo farmaajo dabada ka riixayo nin xamar nabad ka dhigto maad salaad liira qulubta shacabka toosh waayo iftiin badan intee aadaysa murusadow waa waxa sababta safarka cas cali qeyr loo arki waayo hadda aan xataa ogaad wuxuu qaban doonana saas waaye qaybta koowaad barnaamijkayga imaamada maada wali la ma deysin war imaamada ma deysin murusada way ku kacayaan laakiin iska la kaftamayaan safarka xasan qeyr saas loo fahmi waa qodobkan inta dhigay